بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل تونا أكسن إذا لهانتين بدأوا ضيال صاحب يال هالكني وبرتان يوتيوب ككلنا هاي وأنا جواها أحمد رسوفي تاريخ وافر لا تنكبيشة مارس سنة لبكون إياه لبي لباتن وأنا هبين أي سوق ليسو تاريخ شني لباتن كبيشة مارسو جمعوا كسر هذا وركنا قضبض وركنا تقضى ودونتان حلقة نوحة كمدا إلهي نحرستي جنا كورابي dadka ku geeriyooday qaraxii xalay ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo tiradoodu ay kor u dhaafayso ilaa 48 ruux halka dhaawacuna uu ka badan yahay 100 qof qaraxa ka dhacay magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan oo ah doorasho deegaanka labaad oo ay ku nafwaayeen akhyaar aad loo jecel yahay iyo Aamina Maxamed Cabdi oo kamid ahayd daawadayaal mucaaradka Soomaaliya oo qaraxaasi si weyn u siyaasadeeyay iyagoo si gaar ah u bartilmaameedsanaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo agaasimihii hore hay'adda NISA haatan la taliyaha madaxweynaha in ka badan 40 qof ayaa ku dhimatay ku dhawaad 50 qof ayaa ku dhimatay balse waxay dadka Soomaaliyeed ka dhaadhicin rabaan kuwa warxumo tashiilka ah arxan laawayaasha siyaasadeed xataa meeytada oo aan ixtiraamin ama aan siin ixtiraamkooda waxay ka dhaadhicin rabaan in Aamina Cabdi oo kamid ahayd guud ahaan dadka halka ku geeriyooday inay si gaar ah u bartilmaameysteen madaxda qaranka halka inta kalena ay u arkaan inay al-shabaab dileen kooxda argagixisada ee al-shabaab oo mar hore iyagu qiratay in ay dili doonaan cid kasta oo ka qayb gashay doorashada Soomaaliya haddii erga ahaa leed xildhibaano iyo waliba ismo intaba kana dhabeeyay iyo waliba arintii xalay tacsidii daawadayaal ummadda Soomaaliyeed oo qaar ay isku dayaan inay siyaasadayaan madaxweynaha maamulka Hirshabelle oo isaguna ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen sidoo kale daawadayaal inta aynu ku guda jirno warbixinteena waxaynu si adag u karbaashi doonaa kuwa meeytida iyo marxuumiinta ka dhiganaya siyaasadda ee maalin Igraan Tahliil waday haddana u bedelo doona kiiska Igraan Tahliil kiiska Aamina Maxamed Cabdi sidoo kale wararkan waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha Galmudug oo xildhibaanada maamulkaasi lagu soo doortay u sameeyay casho sharaf qodobadaas ayaynu idin haynaa inkastoo aanu idin kala daahnay warbixinada daawadayaal haddana bartani waa hilinka ama barta ugu muhiimsan ee aad ka heli kartid warar ku salaysan waaqic dhaba isla markaana looga daba tagayo been afuufayaasha waa tahay daawadayaal qodobadaas ayaynu idin haynaa balse intaan ugu dagalin waxaan idin ka codsanaa barteena aan idin soo marsiinaynaa ugurmadka iyo qaraamida ama qaraamida dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee maatada ah inaynu ka qayb qaadano inkastoo xilli roobaad la galay oo xilliga guga uu roobka hadda bilaabanayo insha Allah wadankeena degmada Waajid maanta uu ka daay ceeri gaabo iyo meelo kala gedisan uu ka daay daawadayaal dadku gurmad ay u baahan yihiin fadlan lambarka shaashada ku qoran ayaad ugu diri kartaa wixii aad awoodo magaalada Gaalkacyo Rabadaan ayaa la galayaa sida la ajrigeedna abtiro biyo dhaamin raashin wixii aynu awoodno ayaynu dadka barakacayaasha dadka masaakiinta iyo tiinta aynu la gaaraynaa fadlan waa inoo muhiim caawintaada nagala qayb qaado saaxiibayaal nagala qayb qaata waa tahay daawadayaal aynu ku bilowno xalay waxa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ah doorasho deegaanka labaad ee markaasi maamulka Hirshabelle ka dhacay qaraxyo aad u culus qaraxa koowaad ayaa lagu dilay amaba lagu khaarijiyay xildhibaanad caan ka ahayd xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya xildhibaanad Aamino Maxamed Cabdi Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo qaraxa ayaana ka dhacay afaafka madaxtooyada ee ku taala Lamagalaay qaraxa labaad ayaa isagana waxa lagu beegsaday dadkii gurmadka ahaa sida uu xaqiijiyay madaxweynaha maamulka Hirshabelle waxaana daawadayaal sidoo kale qaraxyada ee ku dhintay xildhibaan hore Xasan Dhuxul halka wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waa wasiir hore Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan isaguna uu dhaawac ka soo gaaray qaraxa ayaa daawadayaal intaas aan ku ekaan laakiin waxa uu geystay khasaare baaxad aad u weyn leh waxaana ku geeriyooday nabadoono saraakiil ganacsato iyo waxgal kale oo ka tirsanaa bulshada gobolka Hiiraan dadkaasi baabacay ayaa tiradoodu waxay gaaraysaa ku dhawaad 50 ruux waxaana dhaawacmay daawadayaal tiraba 108 ruux sida uu xaqiijiyay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Xuseen Guudlaawe haddaba daawadayaal sawiradan aad arkaysaan waxa ay qayb ka yihiin dadkii ku geeriyooday kuwaas oo aan halkan lagu soo koobi karin amaba aysan suuro gelin in dhammaantood la helo sawiradooda dadka qaraxa labaad lagu qarxiyay ayaa waxa kamid ahaa dad goobtii qarxi koowaad uu ka dhacay ee xildhibaanad Aamino iyo lagu bartilmaameystay dad u soo gurmaday si ay markaasi wixii aan raahday dhaawaca oo u baahan badbaado ama gurmad degdeg ah ay uga qayb qaataan gurmadkooda
arrimaha la yaab kale oo saaxadda iyo siyaasadda ay ku soo kordhiyeen manaxayaasha ka gaadleeya amaba ka macaasha daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed balse jecel inay iyagu rogaan oo siyaasadda iyo dantoodu iyo dhaliishoodu ay haatan gashay markii wax kale oo ay ku dhaliilaan dawladda uu garwadeenku ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii waayeen kuwa ay uga soo hartay in ay raadiyaan qarax iyo dhibaato iyo jug ka dhaca wadanka kuna ducaystaan si ay dhaliil uga sameeyaan ayaa durbadii xalay waxay bilaabeen in ay baraha bulshada ku faafiyaan warar dacaayaad ah iyo waliba warar mala awaal ah oo xaqiiqda ka fog taas oo ku saabsan in xildhibaanad Aamino Maxamed Cabdi ay dileen Fahad Yaasiin Xaaji Daahir la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya agaasimihii hore ee hay'adda NISA iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya arrintan ayayna u cuskiyeen daawadayaal in gabadha Aamino Cabdi ay marka Aamino Maxamed Cabdi ay aad uga warhaysay kiiska Igraan Tahliil laftigiisa ayaa waxaa jirtay in ay daawadayaal gabadhaasi la waayay oo aan ilaa iyo hadda wax cadeyn aan loo hayn cidda dishay balse kooxda Al-Shabaab lagu eedeeyay inay dileen walow aysan sheegan Al-Shabaab ayaa siyaasiyiin ah mararka qaarkood dilalka siyaasad ayay ka dhexraadiyaan tusaale hadii aynu idinku soo qaadano waxa jiri jiray wadaad Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan la dhaho oo sanado badan ka hor ay ku dileen magaalada Boosaaso sidoo kale waxa jiray wadaadka ugu dambeeyay ee maalin dhowtay ay ku dileen magaalada Kismaayo ee Sheekh Cabdinaasir culimo kale iyo dad kale oo muxtarimiin ah oo bulshada caan ka dhex ahaa hal qof oo ay sheegteen inta badan ma aysan jirin iyagoo ka cararaya culayska shacabka qarxii Soobe aad ogeedeen ayaysan sheegan kooxdan argagixisada ee Al-Shabaab haddaba daawadayaal Igraan Tahliil oo la waayay muddo ka hor isla markaana muddo la goobayay ayaa waxa si siyaasad kiiskeeda looga dhigto ee ahaan dusha loogu saaray Fahad Yaasiin ujeedkii ugu weynaa oo laga lahaa wuxuu ahaa in hay'adda NISA oo dhinacna loo dhaafi waayay amniga wadankana xaqiijisay lacaga laaluush iyo shisheeye ay wadeenna laga soo gali waayay wadanka in la dumiyo isla markaana hogaamiyahooda Fahad Yaasiin xilka laga qaado taa uu ku guuleystay Rooble laakiin uga muusan harin intaas si xasaanad xildhibaannimo uga ilaaliyo iyo tartanka gudoomiye xigeenka baarlamaanka ayaa dagaal kale u sii waday kiiska Igraan Tahliil ayaa waxa uu noqday kaar la xoqdo waqtiyada ay xamaasadda iyo xasarada ay u dhaxayso xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha ay soo shaabaxaan iyadoo uu noqday kiis caadi loo siyaasadeynayo isla markaana laga faa'iideysanayo cadifada hooyanimo ee Maama Qaali oo ah hooyada dhashay gabadhan Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo xildhibaanada ayaa iyaduna aad kiiska ugu ololay jirtay in Fahad Yaasiin iyo raggaasi ay ka dambeeyaan walow mararka qaarkood lagu dhaliili jiray arintaas haddana haatan waa marxuumad Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo haddaba daawadayaal maxaa laga macaashi karaa ama laga faa'iidi karaa iyadoo wasiirka amniga oo amniga ku fashilmay hoteelkiisa shaah ku gadaya waa Cabdullaahi 30 milyan haysta iyo wax noocaas oo noo keenay Rooble oo musuqmaasuq ku asteysnaa in uu haddana isku dayo nin cadaalad iyo wanaag raadinaya maalmo ka hor isaga ayaa Rooble afkiisa laga hayaa Beledweyne waa amaane maxaa ciidanka qaranka loo geeyay isaga iyo wasiiradiisa aan waxba isdhaamin ee wasiir TikTok iyo wasiir 30 milyan ay weerar ku qaadeen ciidamada qaranka ee halkaas la geeyay balse Beledweyne iyo gobolka Hiiraan waxa ku gadaaman daawadayaal kooxda argagixisada ee arxanka daran ee Al-Shabaab waana kuwa ka geysanaya weerarada halkan maxaa daawadayaal 48 qof hadii ay ku dhinteen Beledweyne Aamino keenay in ay qarxiyaan Fahad Yaasiin halka ay inta kale oo mujtamaca oo waxgal ganacsato aqoon-yahano nabadoono saraakiil iyo intaas oo qof lahaa ay loogu eedeynaya in markaasi aan loogu eedeynin inay dileen markaasi Fahad Yaasiin iyo Farmaajo waa nacasnimada iyo naxariis la'aanta kuwa dhiiga ka gaadleeya isla markaana ka dhiganaya in ay markaasi wax wanaagsan sameynayaan in ay qof marxuum oo dhintay ay siyaasadayaan maxay tahay dhibaatada ay keeni karto in qof marxuumada oo dhintay in la siyaasadayo waa in carruurtii ay ka tagtay iyo qoyskeedii codad lagu abuuro si lamida sidii kiiska Igraan Tahliil ee la siyaasadeeyay isla markaana hooyada dhashay codad loogu abuuray ka dhanaa hay'adda NISA isla markaana mararka dana gaar laga leeyahay loo soo kiciyo waxa la arkay Xasan Sheekh Maxamuud oo naxariis jilaya isagoo ilmeynaya miyuusan ahayn kii gabdhaha Soomaaliyeed qaaday ayaa la isweydiinaya miyuusan ahayn kii xildhibaanada mishinka ku leey jiray magaalada Muqdisho gudaheeda xildhibaan kasta ka soo horjeestana dili jiray mararka qaarkoodna janaasada iyadoo loo taagan yahay laga soo aflagaaday jiray oo laga cay jiray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ragga la halmaala waxa lagu waayay arrimaha ee ku saabsan musuqmaasuq xatooyo qaran iyo waliba dabadhilifnimo sidoo kale habkay wax u wadaan ayay ka biyadiideen kooxaha mucaaradka ee ayagu markaas la shaqeysta wadamada shisheeye ee dalkeena duduminaya kaarka la xoqday ayaa waxay tahay kiiska Igraan Tahliil oo aysan waxba ka ogeyn raggan mas'uuliyiinta balse si sumcaddooda loo dhaawaco wax badan oo hamigoodana looga hor istaago laga dhigtay dhufays lagu dhunto waxaana hadda ku soo biiray kiiska Aamino Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye Aamino iyo xildhibaan Dhuxul ayaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hooyo laga dejiyay halkaas oo lagu tukaday meedadkooda jinaaso
waxaana daawadayaal loo rajeeyay oo shacabka Soomaaliyeed u rajeeyeen dhamaantood naxariis arimaha naxdinta leh ee ku soo biiray siyaasadeena ayaa waxay tahay in kooxaha mucaaradka ay qaswadayaasha ah markii ay waayeen kaar ay xoqdaan waa kuwo marar badan shacabka Soomaaliyeed iska fogeeyay kadib markii dagaalo qabaa'ilo iyo waxyaabo kale ay ku goodiyeen waa kuwo hore uga asteysnaa musuqmaasuq dabadhilifnimo iyo waliba shisheeye kalkaalnimo waa kuwo ay naxariistu ka fogeed waana kuwo daawadayaal ka masayray hogaaminta suuban ee madaxdan qaranka ee haatan joogay nabadii nolol waana kuwa ku fogan sidii ay u sumcadili lahaayeen ujeedooyinka ugu waaweyn iyo gacmaha ugu waaweyn ee loo adeegsanayo ayaa ah ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo isagu u muuqda in arimihii loo diray maahan arimo kale oo isaga fogan yahay arimaha xasaasiga waxay tahay inuu ku baahiyay qoraal bartiisa Facebook laba qoraal oo la soo kala dhigay mid kamid ah in la ishuunayay in kiiskii shalay xalana ka dhacay iyo waliba kiiska beledweyne ka dhacay ay yihiin wax isle iyadoo daawadayaal kooxda Roble fashilka dul hoganaya ayaga maadaama ay ku fashilmeen amnigii isla markaana ay markaasi siyaasadeen amnigii dalka in ay iyagii halka ka raadinayaan ayaa muuqata siyaasad inay ka sii raadinayaan taas oo lagu tilmaamay naxariis darro dhowr jeer ayuu codsaday in lagu wareejiyo amniga si uu ugu ciyaaro sidoo ugu ciyaaray doorashada waana taas doorashadii loo diray oo cadaalad laga rabay qaarkeed maanta ceel waaq oo Kenya xoog ay ku haysato in lagu qabto uraali ka yahay oo u arko doorasho hufan halka magaalada Garbahaare ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay joogeenna uu ka kaxeeyay shacabkii oo isha ku hayay waliba waana nooca uu rabo inuu kula wareego amni iyo waliba waxyaabo kale waana kooxaha mucaaradka oo haatan soo kiciye mar kale ama soo istaaray qodobadii dhahayay amniga ee qaranka ee guud ee madaxweynaha ha kala wareego wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga inay shaqadooda qabsadaan oo ammaanka wadanka xaqiijiyaan madaxweyne Farmaajo kama hortaagna laakiin marnaba ma jiri doonto ammaan lagu wareejiyo kuwa shisheeye kalkaalka ayuu yiri siyaasi ka tirsan siyaasiyiinta fila Soomaaliya oo ay daawadayaal aan la yeelanay xogo iyo waliba warwareyn amaba aan ka wareysanay sida xaalka guud ee wadankeena uu ku sugan yahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayay daawadayaal kooxahan qaswadayaasha haatan waxay markaasi ay rabaan inay dagaal kale la galaan iyagoo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee markaasi uu isku soo sharxi lahaana xildhibaan Saadiye Salaad xildhibaan Firimbi oo dhawaan dani markii hore rabay inuu ka reebo tartanka laakiin markii dambe uu ku soo celiyay oo markaasi kursi soo siiyay ayay rabaan in ay haatan ay soo barbar istaajiyaan si ay u qulubto hanka uu leeyahay Fahad Yaasiin dagaalkaas ay kula jiraan kuma filna ee dacaayadaadkan raqiiska ay fidiyeen balse shacabka Soomaaliyeed ay aad u la yaaban yihiin kalena hortagayaan cambaareynta iyo ceebaynta ay daawadayaal kooxahani kab ka sii dhiganayaan waana Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta kaamirada soo hor istaajiyay isagoo ilin jiraya waana ninkii ugu sharta badnaa marka dhanka leynta dadka iyo waliba dilka la dhaho assassination-ada madaxtooyadiisa ay ka dhici jireen meel kale iska daayay beledweyne waaba fogtahay waxayna ahayd xarun ay ku gadaamayeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab balse xarunta madaxtooyada ee fila Soomaaliya ayay kooxdu intee weerarto ayay xafiiska ra'iisul wasaaraha weerari jireen sidoo kale xildhibaanada ayay leey jireen waxaana intii uu talada wadanka hayay iska horleexiyay sida ugu itibaaxayaan xildhibaano aad u fara badan oo uu laayay sidoo kale ugu dambeyntii daawadayaal xalay waxa magaalada Dhuusamareeb lagu qabtay kulan u dhaxeeyay baarlamaanka cusub ee Galmudug ee 22aad ee ka soo baxay araada Galmudug ee xildhibaanada 22aad iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor kulanka ayaana daarnaa isbarasho iswareysi iyo waliba kulan ku saabsanaa sidii la isku macsalaamay lahaa iyadoo halkaasi markaasi madaxweynuhu kula dardaarmay dadkii mas'uuliyiinta ahaa ee cashadaasi ka soo qayb galay kulan kale ayayna yeelan doonaan sida xogo itibaaxayaan daawadayaal in wadankeenu uu ku sugan yahay xaalad xasaasi ah ayaa xaqiiq ah laakiin waxa sabab u ah xaaladaha wadankeena ka jira hadii ahaale dhanka amniga oo xun iyo wax walba oo dhibaato ah oo dhacaya ra'iisul wasaaraha kooxda Al-Shabaab hore ay ugu bishaareen ummadda Soomaaliyeed inay leey doonaan dhiigoodana uu banaan yahay hadii ay ku arkaan waxyaabaha ay ugu yeereen doorashada murtidnimo ee dalkeena ka socota waana ujeedkooda oo ay ka dhabeynayaan xalay hore ayay ka sheegteen gumaadkii loo geystay shacabka Soomaaliyeed iyo 48 ruux waxaana daawadayaal shaki ay ku jirin in isku day doonaan ilaa ay xad inay sii wadaan daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed kuwa arxalaawayaasha ee iyagu halkaas siyaasad ka baaraya waxaan u taagnaa doonaa inaan mar walba la dagaalano sidaad u aragto kuwaas aan naxariista lahayn daawadayaal dhanka hoose ayaad nagula wadaagi kartaan fikirkiina